السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن ee ku xiran channelkeena YouTube ee Sahaltech wali waxaan ku guda jirnaa barashada Adobe Photoshop CC 21 casharkan 15aad maanta waxaynu ku qaadanaynaa sida sawirka loogu jaro background-ka iyo sida background cusub sawirka loo saaro isla socod wanaagsan ugu horeyn hadda sawirkan ayaa halkan inoo yaala sawirkan ayaa halkan inoo yaala okay waxaan isku dayaynaa marka sawirkan inaan qaadno oo aan geeyno xaga normal layer noogu bedel kadibna waan qaadaynaa halkan ayaan dhigaynaa okay halkan markii aan dhigno ama sawirka halkiisa halka hore yaalay aan ku soo laabano sawirka halkan yaala okay background-kan cadaanka ah qaabka ayaynu ku bedeleynaa okay waxaan tagaynaa halkan ay nooga qoran tahay eraser tool dhowr qaabooda loo jari karaa balse hadda waxaan tagaynaa eraser tool right click ayaan leenahay kadibna waxaan soo qaadanaynaa magic eraser tool midka ugu dambeeya ayaan soo qaadanaynaa kadibna click ayaan leenahay wuxuu inaga saameeyay ama uu inaga jaray qaybta ama aragtay aan soo celiyo control z aan iraado qaybtan waayo cadaan ayaa ku jira wixii cadaan qaybtaas ku jiro dhan wuu jari doonaa fiiri marka okay halka click aan ku siino halkan click ayaan ku siinayna halkan click okay badankii waan wada jarnay marka kan hata geeska ka jar kan sidoo kale maarta fiiqan yar ayaa ku jirta okay maarta hadda background-kii waan jarnay waan qaadaynaa halkaas aan geynayna kadibna background cusub ayaynu dhiibaynaa ama ayaan saaraynaa su'aal halkan inoo keen hadda markii aad fiiriso labadan sawir markii aad isku fiiriso kan iyo kan markii aad isku fiiriso kan background-ka ka dambeeya waa wada cadaan halka kan xoogaa maarta uu la dareemayo cadaankiisa zaid inuusan ahayn okay kan inaga saar noo fur daaqada window-ga layers-ka noo soo fur okay kan inaga saar ama inaga qari okay kaasoo naga qarsan yahay kanna waa sidaan okay kadibna waxaan soo gelinaynaa ama waxaan isku dayaynaa background ma aragtay background-kan oo kale inaan ka bedelno halkaas waxaan tagaynaa rectangle-kan tagaynaa kadibna rectangle ayaan soo qaadanaynaa okay rectangle markii saan u soo qaadano rectangle-ka wuxuu noo siiyay madow ayuu noo siiyay sidan haddii aan ku dayno marka wuxuu noqonayaa background madow ayuu noqonayaa okay anigu sidan kama rabo background inaan kala reeyo ayaan rabaa okay halkaas ayaan tagayaa kadibna meeshan kalarada ayaan furanayaa tusaale blue kale aan rabaa inaan ka dhigo blue oo kale ayaan rabaa inaan ka dhigo background-ka sidaas ayuu noqonayaa haddii guduud aan ka dhigana sidaa ayuu noqonayaa marka waxaan ku sii deynayaa okay kan baan ku sii daayo background-ka kalarkan ayaan ka dhigtay waa kale markaa hadda sidaan oo kale background-ka waan ka bedelay oo marka hore background cadaan ah xoogaa cadaan ah ayaa saarnaa hadda laakiin background-kan ayaan wada saartay waana ujeedaa sawirka waa maartay waxba kama qarsana maasha Allah iska qurux badan yahay okay mid labaad ayaan ku sameynaynaa kan hadda waxaan aragnay sida background-ka loo jarana waan aragnay sida background-ka loogu bedelana waan aragnay okay sawir labaad ayaan la soo galaynaa kan inaga saar mid kale oo maartay kan hadda waa maartay sawir iska haafa sawir kale buuxa inaan la soo galnay isku dayaynaa tusaale sample-kan kan inoo soo qaad sawirkan inoo soo qaad sidoo kale waxay noo soo qaadaa okay sawirkan intaan maartay wax kale aan soo qaadanin waxaan isku dayaynaa inaan background-ka aan ka bedelno okay halkan ayaan tagaynaa oo eraser tool ah magic eraser tool ayaan kasii tagaynaa kadibna click ayaan leenahay hadda waad u jeedaa sawirkii background-kii oo dhan waan ka bedelnay background-ka marka hore muxuu ahaa background-ka xoogaa maartay jaalaha okay click ayaan background-ku waan ka jarnay okay maadaama background-kiisii aan ka jarnay waxaan u baahanay marka background cusub inaan soo saarno okay background-ku markaan waxaan u soo qaadanaynaa sawir caadi oo banaankan aan soo qaadanaynaa sawir ayaan waxaan kaga dhigaynaa background ayaan sawir kaga dhigaynaa okay aan iska soo qaato sawirkan kan ayaan soo qaadanayaa
okay waxaan isku dayi doonaa marka inaan isku geeyo okay sawirka maaragta waan iska xireynaa backgroundka cadaankan ku daynaya okay ka markaan iska xiro kan ayaan soo qaadanaya kan ayaan waxaan rabaa inaan background ahaan aan u isticmaalo ama inaan background aan ka dhigo ayaan rabaa okay halkaan noogey halkaan kusii duldaa okay halkaan markaa kusii daysid control T dhe waxaan rabaa backgroundku inuu weynaado screen-ka dhan ama cabirkaas oo dhan inaan qaadsiiyo ayaan u baahana okay sidaan markii aan ka dhigo waxaan soo qaadanaya marka sawirkii background-ka iga saar horta waan iska masaxayaa hadduu ku anfici waayna background kale ka wanaagsan oo iska soo qaadan karta kadibna sawirkii aan background-ka ka soo jaray ayaan soo qaadanaya sawirka waxa uu wato malahan waa background laan waan soo qaadanaya kadibna halkan ayaan keenaya haga kor u qaad waan weyneenayaa marka sawirka waxaan la qabanaya marka altan la qabanaya si sawir isla eg uu soo baxo okay kadibna sawirka xoogaa kor u yara qaad okay halkaa ku ekay waa ujeedaa marka hadda waxaan soo saarnay waa maarta sawirka iyo background-ka ayaan soo saarnay okay sawirka haddaba dhanka aad maarta ka dhigto background-ka adiga ay kugu xiran tahay haddii halka aad ka dhigtana sida ayuu ku noqonaya haddii halka aad ka dhigtana sida ayuu ku noqonaya cashirkan 15aad ahna cashirkii ugu dambeeyay guud ahaan koorskan halka ayuu inooga yahay sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe inoo saar like ta nagu dhiirigeli wixii fahliyo comment aad qabtana nagu reeb qaybta faalooyinka